iyo saddex iyo afar ba u guursada ayga raalli ahaadeen islaamaha aan ogoleen laba guurka iyo saddex guurka laakiin waa aayad quraan oo waynu sheegaynaayo waa xaq marka ilaahay wuxuu leeyahay laba iyo saddex iyo afar ba haweenka loo guursado hala dayactiro ninka inuu guursado afar xaas iyo laba xaas ba sababtaad ugu diidan tahay haddii maanta lagu weydiiyo waxaad dhahaysaa maya ninkayga anigu ma rabo in la qaybsado laakiin taas maaha waxaasnimo kugu jirtaadan ogeyn mawduucan inaan ka hadlo oo sheekhan xaggan soo dhigay oo ka hadlaya dumarka inay guurka ay ogolaadaan in la badiyo oo marar badan ay culimada ku hadasho waxaan rabaa hablo inaan mawduucan isla fiirino maanta qof walba dhan buu ka arkaa anigu dhankan maanta rabo inaan ka arko inaad idinkuna igala aragtaan baan rajeynaya mar walba culimadu way ka hadlaan oo nalaku baraarujiyaa inaguna waa ognaho wixii ilaahay baneeyey weeyaan oo dee ragga u baneeyey inay afar guursan karayaan marka sababtaynu inaguna ugu hortaaganahay baan raadiyey oon isku dayay bal inaan ogaano oo dhanka inagu aan ka arkayna maaha dhan kale inaynu ka fiirino xaasidnimada wax wanaagsan maaha oo ilaahay hanaga hayo wax xun qofka xaasidka waxaa lagu yaqaanaa inuu qofka walaalkiisa uusan la jeclayn wax wanaagsan inuu maanta nolol qurux badan haysto ku noolaado farxad haysto waxaasoo dhan qofka xaasidka qofka kale oo walaalkiisa uma ogolo masayrka marka inoo diidaya ninkeenu inuu laba xaas iyo saddex xaas uu guursado waa nooc min alxaasid ah maanta adigu noloshaad haysatidba waxaad u diidan tahay gabadh walaashaaya inay hesho soo xaasidnimo maaha maanta adigu naftaada waxaad la jeceshahayna qofka walaalka inaad la jeclaatid weeyo nolosha quruxda badan haysatid farxadaad haysatid noloshan aad ku nooshahay in gabadh walaashaaya ay hesho inaad adigu u ogolaatid maaha inaad kasoo horjeesatid dee waa xaasidnimo marka hablo anigu markaan soo ogaado soo raadiyay waxaan ogaaday sababtaan ugu diidino raggeenu inay gabadh kale guursadaan waa nooc min alxaasida aan iska dayno nimanka dhana kama hadlayno waxaynu ka hadlaynaa ninkii awoodi karaya 2 iyo 3 inuu guursado iyo 4 kama hadlayno ninka kaliya oo hal gabadh mas'uuliyadeeda baan ka soo bixi karinba isagoo xataa hantida haystaba qaar baan mas'uuliyadda gabadha ka soo bixi yacni mas'uuliyad badan aan qaadi karinba laakiin waxaynu ka hadlaynaa nimanka adiga ku dhaqan karaya tu labaad dhaqan karaya tu saddexaad dhaqan karayo oo mas'uuliyadda adiga nolosha uu ku siiyay mid leeg u siin karayo sababtaad ugu diidid waa qalab dibna iskugu noqo waxaad raahdaa aniga maanta noloshan baan haystaa sababtaan gabadha kale ugu diidanahay noloshan aan haysto hadduu ninkaygu awoodo maxay tahay soo xaasidnimo maaha markaa gabdho xaasidnimadan iska dayno ninkaaga maanta haddaad og tahay inuu adiga noloshaada iyo 3 kaleba uu kasoo bixi karayo maanta waxaad u daraada fasax baa tahay urso noloshada aniga siisay mid le gabadh walaashay waad siin kartaa si ma garatay marka hablo aan dhanka aan ka arkayna maaha dhanka kale aan ka fiirino maanta dhankaad ka arkaysid haddii lagu weydiiyo waxaad leedahay kaliya ninkayga lagula qaybsado ma ogi jawaab kale haysaa ma haysid ninkii يعني gabadha mas'uuliyadeeda qaadi kara taada qaadi kara to kale qaadi kara ha u diidin anigaan iska bilaabo ma garateen marka hablo arintaas aan isla fiirino waanada culimada aan maqalo ilaahay wuxuu baneeyay ka soo horjeesanin xaasidnimadana iska deeno waa xaasidnimo anigu markaan soo raadiyo ogaadayo si dhinac dhan walba ka fiiriyay waxay la noqotay nooc min alxaasid ah sababtoo wax anigu wanaagsan haysto inaan qof walaalkii u diido waa xaasidnimo marka arintaas mawduuc kale rabaa inaan ku sii daba xiro oo mar walba ay isagana hadda mawduuc sheekhan uu ka hadlay oo in guurka dhalinyaradu ay guursadaan inta yar yihiin waliba ay guursadaan waqti xaadirkan dhalinyaro badan waxa jiraan dhaqaale haysta rag iyo dumarba laakiin aan guursan sababtaasna ma garanayo waxa jiraan dhalinyaro kale oo ayagu maanta jeebkoodu u awoodin oo wiilal waliba oo mas'uuliyad qaadi karayo ka soo bixi karayo ehlu diin oo ma sha Allah laakiin aan jeebka u saamaxayn inuu guursado gabdho waxa jiraan marka ayaguna guur rabaan oo lacag haystaan
marka gabdhaha waxaan rabaa inaan tala siiyo ninka sababtan gabdhaha talada u siinaya waxa weeyaan ninku wiilkan jeebkiisu iminka maran yahay hadduu haysan lahaa yacni lacag maanta yacni jeebkiisa haysan lahaa oo adiga kusoo doonan lahaa dee lakuma dhihi lahayn lacag baad haysataaye bixi kuma dhahi lahayn isaga wuxuu allaale iyo siduu ugu quruxda badan adigu aad jecesha kuu samayn lahaa inaad maanta isaga garab istaagtid oo tiraahdid dumarku inta badan ma jecla inay nin lacag siiyaan laakiin inaad tiraahdid niyahow lacag baan ku dayminayaa intaasaan ku siinayaa noloshaada iyo noloshiinaba kasoo saar meel marka faa'iidadana qaado lafahana iska soo celi walaal mabad siin bay waa daymisay mogtahay haddaad dhibsanaysid ba inaad nin inta lacag siisid adigu lacagtaada aad siisid daymi waxaad tirahdaa walaal lacagtan qaado lafahana iska soo celi faa'iidadana waa taasaa noloshiina ku maareen adigu nin ragaa taa meel iskaga soo saar yacni taas maxaa waxa laga yaabaa adigu intaad ka filaysay ka badan inuu ninkaasi beri kuu sameeyo shaqsi kow iyo laba way xumaan karayaan wixii xumaan karaya xaggan iska dhig oo yacni qof maanta intaad dee wanaajiso intaasoo dhan aad u samayso ku xumeeyey yacni dee meel maba gaadhaya adigu faraxa ka qaad laakiin hadduu mid xumaado laba xumaado dee ma wada xumaanayaan moogtahay marka gabdhahan waxaan leeyahay haddaad maanta dhaqaale haysatid ood garanaysid nin mas-uuliyadaada iyo maanta yacni sharafkaaga iyo wax walba ilaalin karaya laakiin uusan jeebkiisa u saamaxayn lacag siiyo deemiyo waxaad tirahdaa islafaha iska soo celi walaal ma garatay haddaad siin kartidna dee waa qof nolosha beritoole laga yaabeeba inuu nolosha adigu rabtay iyo mid kaloo adoo lacag haysatay aad sugaysay ku kaloo lacag kaasii bixiya dee ka badan inuu kuu samayn lahaa baa dhici karta marka taladaana gabdhaha waan siinayaa midda kale xaasnimadana aan iska dayno aad baa u mahadsantihiin